boqortooyada Sacuudiga oo sanadihii u dambeeyay xoog saartay dhismaha ciidankeeda ayaa noqotay caalamka oo dhan dawladda saddexaad ee miisaaniyadda ugu badan ku bixisa dhanka ciidamada iyadoo tusaale ahaan sanadkii 2014 ciidamada ku kharash gareysay miisaaniyad ka badan 80 bilyan oo dollarka Mareykanka ah dhaqaalaha oo u dhigmaya boqolkiiba 10 dakhliga wax soo saarka sanadlaha ee gudaha boqortooyadaas sidaasayna ku gashay kaalinta saddexaad ee dalalka miisaaniyadda ugu badan ku bixiya milatarigooda wadamadaas oo ay kaalinta koowaad kaga jirto dawladda Mareykanka kaalinta labaadna ay ku jiraan dalweynaha Shiinaha milatariga Sacuudiga ayaa ka badan rubuc milyan askari iyadoo ciidanka loogu yeedho xarasul xuduudka ama ilaalada xuduudda ay yihiin kuwa ugu badan milatariga Sacuudiga ciidanka oo tiradiisu gaadhayso 100,000 oo askari xilli ay ciidanka baduna gaadhayaan 13,500 askari ciidamada dhanka cirka ee boqortooyada ayaa ka badan 20,000 oo askari iyadoo ciidamada cirka ku gaashaaman yihiin qaybo ka mid ah noocyada diyaaradaha dagaalka ee ugu casirsan sida diyaaradaha noocoodu yahay F-15 ee Mareykanku sameeyaan iyo diyaaradaha Tornado ee reer Yurub farsameeyaan oo ay wehelinayaan diyaaradaha noocoodu yahay Typhoon ee Britain ay soo saarto iyo waliba diyaaradda kale ee helicopterta ee Ameerikaanka ee noocoodu yahay Apache ciidamada infantryga ee boqortooyada Sacuudigu waxay haystaan qiyaastii 315 taangiyada dagaalka ah oo noocoodu yahay M1A2 Abram kuwaas oo ay dhinac socdaan gawaarida gaashaaman ee ay ku rakaban yihiin gantaalaha ka hortaga dabaabaadka ee DF-21 iyo saanada kale ee laga rido gantaalaha ridada dheer